hadal hoos oo dhagar ah inay jirto oo la doonayo mucaanaadka iyo dhibaatada dadkeena in lagu haayo dilkan iyo duqeyntan iyo gaajaysiinta inay socoto qorshahaasa noo muuqda ayay leeyihiin. dhinaca kale Trump ayaa arrinta ka hadlay, bal u fiirso hadalkiisa iyo hadalkan soo isu waafaqayo. wuxuu leeyahay waan ka soo baxnay horta mufaawadaadkii iyo dhexdhexaadintii, waa arrin weyn. macnaheedu waa maxay? rajadii la qabay xabajoojintii Gaza, dhibaatadan iyo reer Falastiin in waxaan ay ka joogsadaan la qabay u dhamaatay weeyaan macnaheeda. almuhim wuxuu leeyahay marka waan ka soo baxnay kow, waana ka xunnahay. maxaa yeeluu leeyahay Xamaas wax ihtimaam ah ma siinayso arrintan wada hadallada iyo in meel macnaha la gaarsiiyo meel dhal oo noqdo. sidaa darteeda qorshe kale ayaan ka fakaraynaa. hadalkaasi xalay yaa xusuusta inuu ku hadlay Witkoff marka uu ka soo baxayay. hadalkii uu ku hadlay wuxuu ahaa qorshe ayaan ku fakaraynaa oo cusub oo aan samayno oo aan ku soo celinayno maxaabiista. hadda hadalkii Mareykanka madaxweynihiisa cadeynaya, Trump cadeynaya, muxuu yahay? sidaan u burburin lahayn Xamaas, sida looga takhalusi lahaa Xamaas. yacni wixii falanqayaasha ay sheegayeen hadda run noqday. dagaalka Gaza in la ballaariyo, in arrinta intan ay ka badnaato ayaa la doonayaa. riviyaarihii alaabtii yani Gaza in dadkan laga saaro, guryo real estate laga dhisay, alaabtii ayaa socota sida dad badan oo falanqayaal ay leeyihiin. dhinaca kale Masar iyo wixii lagu qabtay iyo faraha lagaha intaanan aadin, bal Cambodia halban ay isu taagno, iyo Thailand. Thailand waxay ku gacan sareysaa inay haysato diyaaradaha Mareykanka ee F-16 iyo teknolojiyada adiga reer galbeedka. Cambodia dabcan China saaxiibo yihiin, laakiin dhammaan ma haysato, iyo Ruushka xataa way la tahay dabcan. hubka isticmaalaysan waa hub qadiimi hore ah, laakiin qaab maxay u dagaalameen mataqaanaa? jabhado oo kale ah, saldhigyo oo ay ka weerar tagaan mabalahanba. waa ciidamada dowladda oo dhan ee Cambodia aan ka hadlaynaa. gantaalada waxay ka tuurayaan macnaha xaafadaha, jidadka ayay ka tuurayaan. markaasaa haddee khasaaraha dhacaya u fiirso. Thailand waa wadan reer galbeedka iyo shalay waan ka hadalnay dalxiis tagid iyo yacni marka la fiiriyo cajiib ah oo dhinaca adiga xataa investmentska maalgashiga reer galbeedka ay ku sameeyaan iyo waa meel noocaas oo kale ah. qaxa ka bilowda marka. Thailandeskan waxay sameeyaan marka maadaama teknolojiyada iyo hubka ay ayaga sareeyaan ayagana duqeyn cashwaa'i ah. dhimasho waxaa la sheegayaa labadii maalmood ee dagaalkan socday yani cirkaasi sii socota oon la qiyaasi karin. macnaha wax ay isu reebanayaan ma lahan. haddana ogow waa dad badan marka la fiiriyo deegaan ahaan dadka ku nool meelaha duqeynta ay ka dhacayso. waxaa jiray heshiis kooban ay gaareen Colombia, yani Colombia Cambodia oo la jeeda iyo Thailand, laakiin Thailand waxay ku eedeynaysaa Cambodia ka baxday, Cambodia waxay ku eedeynaysaa ayaga ka baxay. sida ahaataba kolley waxay u badan tahay in la dhaxgali doono, laakiin hadde saa muhiim uma ahan hadday isku rafaadaan isku baaba'aan xataa. marka taasi waa taa. dhinaca kale waxaan ad arkaysaan waa derbi wiil Falastiini reer Gaza ah, waxa uu qadayna waa god. derbigii masaarida ay qodeen macnaha ay dhiseen ee Gaza ay isaga celiyeen ayuu hoostiisa qodayaa. hadda ogow derbigan dhulka wuxuu jiraa intaasoo mitir ayuu jiraa oo shub ah weliba. xataa ujeedada loo sameeyey waxay ahaydba in tunelo aan la dhexmarin eriyadaasi. marka derbigaasoo qodaya marka video weeyaan, anaa screenshot ka soo qaaday. waxaa la weydiinayaa war haddaad qodda xataa ma gaaraysi see wax u wadaa? wuxuu leeyahay lacalla in meeshan ay ilaaweyna laga inaan ka dhex baxo waxaan meeshaas inaan kasoo xiro cunto ah. okay, arrinta meesha markay marayso shaleeto waxaad ogtihiin Masar inay tiri annaga waa lanagu eedeynaya oo Israa'iil waa beenteeda, shacabka reer Falastiin annaga gaajaysiin iyo kada ay shaqo kuma lihin, annaga ma aanan ka xiran iyo wixii la midka ah. okay, laakiin hadal waxaa jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Masar oo ku hadlay. hadalkaas muxuu ahaa? bal ila dhegeysta mar. أن مصر استثمرت الكثير بمبالغ مالية ضخمة على مدار العشر سنوات الماضية لإقامة سياج أمني على حدودنا، بالتأكيد لضمان التدمير الكامل لكل الأنفاق التي كانت. wuxuu ka hadlayaa Sisi inta uu joogay. wuxuu yiri waxaan bixinoo naga baxay intaasoo malaayiin lacag ah. maxaan ku bixinay? weli maalgelin ah, istismaar ku tilmaamay. istismaar derbi la dhisay oo dad cunaqabataan lagu saarayo, istismaarta u yahay haddii faa'iido aynan ka soo galin dabcan faa'iido ka soo galaysa oo dhinaca ay Israa'iili lacago Mareykan oo siiyo subsidies lagu tilmaamay adiga oo almuhim yani ayaa la siiyaa. sida ahaataba lacago malaayiin aan naga baxdo leeyahay 10kii sane u dambeysay waa xilligii Sisi uu joogay. maxaa lacagtaasi lagu sameeyay? derbigaasi Falastiiniinta in lagu dhiso ama adiga lagu go'doomiyo
كو محاكا له بل ليسو كانت موجودة من الجانب الآخر من الحدود منذ الاحتلال الإسرائيلي. هذه الأنفاق عفوا يسيدا سوكره يعني كد إلى المحايل ومهمة إن نكبر برينه تنلدي أي حماس ماشي كدستان أما فلسطين كدستان ولي وحوليه هي تنلدي اسمه دو فوق أي هيك كدستان ماشي أصلها إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي. مرة أي مصر دمرت لا أقول المئات ولكن عدة آلاف من الأنفاق تماما. وكما بل أوفيسو هذا كاسي مصر وحي هي بربوريسي مرة هاي بخلال تونل بل كمانان تونل أي بربوريسي وانا رون يا حسوس تبيه بدي إني مصر كشبتي مصر إني هي يعني بسم الله بل وحي سميسي إلى دقيقة هذا الكلام. قمنا بنقل منازل وبعض القرى إلى مناطق أخرى لأنها كانت تستخدم كفتحات لهذه. بل كورا ما أهان كلي تونل إلى الدمية ودربي لقديسي حتى عدد كي دقنا سيناء إيرار عريش إيريا داسي دad kii deganaa maxaad xusuustaan in la garaacay xoog lagu kiciyey loo xoog sheegtay weliba guryahooda laga dudumiyey keliya maxaa lagu sameeyey dadkan asal ahaan waxaa lagu tilmaamaa Falastiiniin inay yihiin oo un ay qadarta hadee samaysay in meesha ay deganaadaan dhinaca iyo Siinaa iyo wixii la midka yaa xusuusta arintaas marka wuxuu ku faanayaa in darbi ay dhiseen si Falastiiniinta u go'doomiyaan تونلادي wax uga galay cuntada waliba tunalada ma aha xataa kuwa xamaas yani kuwi cuntada uga galaysay masarna watay hore u sheegtay inay xireen sidaas oo kale tunaladaas loo xirana dadkii area deganaa inay barakiciyaan baadi wax ka dheh masar halkay kaga baxaysaa cunaqabateynta reer Gaza marka maxay kula tahay haddeertaan la soo faagfaagaya waxba yeenan sheegan macnaha oo dhihin anaga kuma jirna iyo wixii la midka bal إذا على هذا البلد ورئيسية إسرائيل أنت بحنا يعني مصر فرتكوا في قايان قرم أولين هذا مركز في رسالة مسؤولها طبعا معناه هذا ما هن إن إسرائيل أنت كدم بين لكن مصر مكل جدا مسؤول ما جفته أفكار مكوش يعني إن العائلة أنت يكون بحيان سيد تونل لازم أوحر لهين عن طريق بحضة سيد يدربيك أوحر لهين سيد أصوات طلابين يعني سيد خبطان أوخب خذنا عنده عدي عاونا يسي مجوريه تونل هذا كسر أحبها أي بربوريان قولوني كانت جوريها أنت كبربوريان كسرتين بالكبر سيد ورقتها انت ودن بيسي ترامب انا هذا الكيس هذا مقشي حد يكو بلاي دغال يعون قبتين الى خيرك دغال غزه